بسم الله الرحمن الرحيم. أدمن كم هذا علنيا أنا حفيز كيوصل بوقتان. إن أولاً وحن هذا علنيا أنو همبليين يا أنا جوهم هذا علنيا حل ما أنا البرلمان كه جمهورية الصومال الآن وحن همبليه وين أو مقله أو قيمة له هل كانوا قدر إياه أنو تهريدين يا قدوميها عصبة قلها برلمان كجمهورية الصومال الآن مدن باشا محمد فارح ومانتا عود أغلبية ku guuleystay inuu ku hanto oo uu noqdo shirgudoonka cusub ee golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland hambaliyo baan leeyahay ilaahay xilka cusub ha kugu astro runtii baasha ma aha qof ku cusub saaxadda gudoonka baarlamaanka wuxuu hore muddo dheer u ahaa gudoomiye ku-xigeenkii koowaad waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doono sharruuc badan oo hortaala iyo hawlo badan oo hor yaala baarlamaanka oo in badan laga sugayay inuu dardar galin doono insha Allah taala ta kale waxaan doonayaa inaan ka jeediyo dhammaan waxaan wargelinaynaa shirkadaha diyaaradaha ama Nairobi ha joogaan ama halkan ha joogaan diyaarad aan ruqsad ka haysan oon loo ogolaanin inay ka degto garoon ka mid ah garoomada jamhuuriyadda Soomaaliland ma iman karto kamana soo degi karto go'aankaas hore u jiray waan ayideena waa taakiidinaynaa waxaan u sheegayaa shirkadaha inaanan damaanad qaadahayn amnigooda iyo badqabkoodaba haddii shirkadaha qaar ay isku dayaan inay ka soo degaan garoomo ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland waanay u madax bannaantahay jamhuuriyadda Soomaaliland xadkeeda hawo iyo bad iyo bariba intaas ayaan oran lahaa wasiir waxaan ku weydiinayaa laba su'aalood su'aasha koowaad waxay tahay hawshii maamulka hawada xagee maraysaa iyo doorashooyinka Soomaaliland ka dhacaya balyagana ka war hawsha maamulka hawada anagu waxaanu qabnaa inay annaga xaggeega meel fiican marayso waan maqlayay dee waa arkaynaa qolada Soomaaliya iyagu dee isku day way wadaan isku daygaana wax suurtagelaya maaha xalka quri waxa weeye safar kasta iyo qalab kasta oo la rakibo innagana qalabkeena waxaynu hawadeena ku maamulnaa waa inoo diyaar iyaguna hadday isku dayayaan inay hawadooda maamushaan teena maahee waxba kama qabno laakiin wax kasta oo isku qaldaaya in ay noqoto oo aan wada hadal laga gelin runtii rajo weyn waan ka qabnaa oo ku niyadsanahay in wada hadal wanaagsan oo la isku afkartaa ay bilaabmaan haddii bilaami waayaan oo ay taasi dhici weydo waxa khasaba in haddii uu dhamaado muddada kala wareega ee ay kaawa loo diyaariyay inay mashruuca ku fuliso ee dhamaystirka sanadka 2018 in golaha maanku oo ay kaawa uga wakiil tahay oo go'aan ka gaadho taasina waxay keeni karaysaa in cid kale lagu wareejiyo hawadeena ha noqoto wadamada jaarka ha noqoto wadamada kale ee maartay loo arko inay muhiim u yihiin taasina waxay dhalin doontaa inay muddo dheer gacanta Soomaalida ay ka maqnaato hawadooda marka waxaan rajo weyn ku qabnaa in wada hadal la isugu yimaado la isla eego suurtagalnimada in la wada maamulan karayo oo ah tii hore loo waday Istanbul iyo Turkiga ba lagu waday haddii se taasi ay suurtagali weydo qolo waliba dee nidaamkeeda iyo qorshaheeda way u madax bannaantahay halkan ka wada sheegi mayno dawladdu waliba qorshaheeda ay leedahay marka annana qorshayaal baan iyagoo qorshayaal bay leeyihiin wax saddex galayana maaha xaggeena laakiin annagu kama rajo xumin waxaan aaminsanahay inay gacan bad qabto ammaan ay ku jirto heshiiskuna sidaa yahay xagga haddaan ku daro doorashada dadku kaarkii si fiican bay u qaateen gobolada hadhay labada gobol ee hadhayna waa soo gabagaboobaysaa waxaynu u diyaar garoonaa waa doorashadii weeye oo dhacda November kolley dee xisbigan ka tirsanahay ee kulmiye rajo wanaagsan baanu qabnaa waxa weeye guulo badan buu dalkan gaadhsiiyey guulaha uu gaadhsiiyeyna wixii loo arkay inuu ku dhammaan waayo muddadan waxa weeyaan hoggaan cusub baa imanaya hoggaanka cusub dhamaystirkeeda iyo kobcinteeda iyo kii hore wixii u baahan la tayeeyo tayeyntoodaba waxaan aaminsanahay inuu
inuu yahay qof waayaraga dalkan dee xaq badan ku leh guulo badan oo halgan dee ka soo qayb qaatay muddo badan dhex joogay oo rag badan oo kale ka maqnaayeen maantana u diyaaray inuu waqtigiisa u huro inuu inta uu cimrigiisa ka hadhay ugu deeqo qarankiisa waxaan aaminsanahay taasi inay macno weyn samaynayso rajo wanaagsan oo ka qabnaa waan aaminsanahay insha allahu tacaala inuu xisbigu mar kale hanto guusha inuu dalka u hogaamiyo gaadhista himiladii loogu talagalay ee laga soo bilaabay ilaa xilligii xornimada كامدنا وسيلة تطلع واحد في تكان حتى فريمات شركة هي وترتاج سبب تكانتاج لو ما واحد شيء ورا شيء هليكوبتر الطيارة ده يمادين لو ورا هكذا إن فهمت وقت أنه ده منهن وزارة قاشاندق أو ملتريجا رميسا ما فرق لينه إن ديارتها ملتريجا إنه يمادة وحوي قار أقولانشيها يكون يمادة إن لكن واحد نقدر نقار حقلان بع حيعله دي وادي صوادكم ما هجرتي قارن أقولانشيها سكله هيسون ودبنا سيدا هذا إسكت صقلها إن خطرت أنو هذه كنا دي دولده ديارده وقلدم كران تركيا واتي ديار راشية كسو حد قدفتي واتي لسور ردي وحي كدعي واللوجا هذا الله نوعاني وحي كتر شو يعني لقى هرتجو إن أنا قلنا نوع عسدين أو أنا قور إنه إن أنا ديار هذا تهاي مت باسنجر يمت كلام أنا كسو حد بين هودين كوا إنه يماده أما هليكوبتر سنة الله مقارك لها النقطان دمان تود أقولان شيء كايسن سومالي لان تاور كينا ويلا صاحد لان ويورجليان قار بحال كان شدال كقاطع مركا تذكر سومالي لان وحلا هم ملايين إن أنا لسعونين كنتي هرنا وزارة ويشاكتي واحد شدال هذه شر الله هليكوبتر والله بقول ما هي قارس ويدار تود دولة كل دول اللي أو مدار كهرجيس صفر يسوع أقولان شيء هيك صفر يستا أو ريفيولينج شدال بيك قاطعن waanu la soconnaa markay soo kacaan bayna soo wargeliyaan taawarkay la soo hadlaan waanu diyaarinaa adeega aanu siinayno waana wax caalamiya weeye runtii markaa waa u qabanaa dee waxaynu nahay dowlad dee jirta madaaradeenna waa madaarada caalamiya marka wixii madaarad qabanaya haddaynu qabanayno yaan loo qaadanin in diyaarad iska socotaa iska soo gashay dalkeena taasi waa taa waxaa kaloo jira iyadana diyaarado overflight ka sameeyo oo dush hawadeena mara habeenkii waxa laga yaabaa guux badan inay dadku maqlaan sababta keenaysa soo kordhisay waxa weeye ma aha diyaarado hawadeena maraya hoose oo local flight oo duulaya oo magaalada ku soo dhawaanaya maaha laakiin macnuhu waxa weeye diyaaradihii awal Yemen mari jiray khadka Yemen markay hawadeedu saxsanayd mari jiray ayaa dhammaantood waxay ka soo beelaan Cumaan halkaasay ka soo galaan Soomaaliland dusheeda mara Soomaaliland waxa loo arkay inay tahay dal badqaba waliba Hargeysa oo halkay ruudka ka qaataan waayo waxa arkay inay tahay magaalo la degan yahay dawlad dareenka jira yahay inay diyaarad badan oo international imika inoo yimaada kuwaas markaa waxa weeye waxa laga helay xogta waa la helayaa marka diyaaradu waxay ku soo dhireynayaan inay ruudka halkay ka qaataan ay noqoto Hargeysa dusheeda marka guuxa badan ee habeenkii waxa weeye waa overflightska waana meelaha aanu doonayno marka hawada la soo wareego in ay noqoto waxaynu gacanta ku hayno dakhliga ka soo galaya ama ha loo qaybsado Soomaaliya iyo Somaliland ama haddii lagu heshiin waayo dee waxay noqon doontaa in xalka imika ay ku socoto laakiin dadaalkeeda waa ku jiraa iyadana insha Allah madaarka hadda horumar ballaaran ayaa ka muuqda hadday tahay dhinaca bilicda iyo shaqaalaha diraysu samayseen VIP-da iyo arrimo badan arrimahaas sidee ugu suurtagalay wallahi horta dee dadaal baanu samaynay dadaalkuna waxa weeye wasiirka waajibka saaran iyo gacan yarayaashiisu waxa khasaba inay meeshay joogaan juhdi galiyaan dabcan waqti doorashaynu galaynaayo kulli wax badan way naga mashquulinaysaa dawaa inaanu u halganaa sidii xisbiga iyagu maartay u guuleysan lahaa waan ugu khasab weeye siyaasaduna waa mabda' weeye maaha dhaqan maaha waa mabda' weeye dadkeenu labaas isku qaldaan waxa weeye dadaalkaanu samaynayna waxa weeye oo wixii madaxweynuhu noo igmaday oo noo magacaabay weeye imika VIP cusub socota oo nagu talagalay sida caalamka inay noqoto in dadku adeeg wanaagsan ka helaan madaarka waxa kaloo jira sidaan hore u sheegnay wali wada hadalkii noo socda terminalkii cusub sidii loo dhisi lahaa oo aan rajaynayno inaanu degdeg imika hawsha u dardargelino su'aalo yar iyo aan isku haynaa jirto oo aan isla xalili doono kulley qalab cusub oo ku soo kordhinayna madaarka waad aragto xagga madaarka wajahadiisa hore waxaan ku soo kordhinay qaybta X-ray-ga baabuurta hoosta ka sawira si loola socdo in wax device iyo wax lagu rakibay oo maartay kale
waxyaalahaasoo dhammi shaqaalaha oo imika qaybtii ugu horreysay kolley xafladda waxaanu qabanaynaa barrimo saa dambe ay ama bixi doonaan institute-ka aviationka ama maamulka hawada lagu barto ee Ethiopia oo ah kuwa ugu horumarsan adduunka ka mid ah imika ama Afrikaba 10 baa tagaya 10kaasi hore tababar soo qaateen imikana waxay soo qaadanayaan tababarka hore wuxuu ahaa inay diyaarada soo nadajiyaan kiciyaan macnaha soo hagi karaan oo ay ilaaliyaan badqabkooda laakiin imika waxay baranayaan waxa weeye waxa la yiraahdaa approachka waxa weeye waa inay hawada sare oo overflightska diyaaradaha dul maro dhan ay soo hagi karayaan taana isku daygan uga jeedna waxa weeye waxaan sharaxi doonaa maalinta aanu sii sogooteynay waxa weeye in aynu helo shaqaale inagu aynu maamulino oo aqoonti leh oo cid kale aanay noo maamulin oo haday nagu kalifto hawadeena inoo maamuli kara oo hanan karaya oo la iman karaya capacity iyo aqoonta ay ku maamuli lahaayeen waxay maqnaan doonaan muddo waan u qorsheynay halkii dagilaayeen iyo maxaan ku rahdaa waxaan u mahad celinayaa mar kale oo horena ugu mahad celiyay wasiirka gaadiidka Ethiopia Axmed Shire oo hawsha runtii counterpart-kayga ah oo hawsha runtii aanu heshiis ka galay noona suurtageliyay iyo dhammaan macallimiinta iyo maamulka Civil Aviation Institute-ka dawladda Ethiopia Addis Ababa si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa safiirkeena Ethiopia iyo ku-xigeenkiisa oo runtii waliba khaasatan mudane ayaan leh oo gacan badan isna arrinta ka geystay waxaan leeyahay runtii dadaalkaasi dalkoo dhan baa u baahan madaarada kale burco uu socdaa dhismihiisii 3 sanadood buu soconaya duruufo abaareed iyo dhaqaale xumo iyo si doorasho ay naga soo galaya waxaan ku dadaalaynaa inuu sii socdo qodistii baa imika socota dadaalkaasi inuu sii socdona waa rajaynaynaa walow duruufahaasi ay jiraan oo turunturooyin badan ay ku yihiin kabarbara dhulkii baa imika loo qorsheeyey oo xaadhistiisii iyo maaragtay sugistiisa ay la bilaabayaan degdegna waxay noqonaysaa in loo bilaabo dhismihiisii dabcan ka kalena markaas inuu insha Allah qorshihiisii in dib u habeyn lagu sameeyo inta aan lagu wareejin qolada oo iyagu ay ku sameeyaan ay soo socotaa insha Allah marka waxaan isleeyahay shaqo abuuris far badan waa laga heli doonaa oo dhalinyaradu ay ka helayso ha noqoto muddo xileedka nooga hadhay iyo ha noqoto ujeedadu ma aha inta nu joogayno ujeedadu waxa weeye ilaah baa ogtaa ujeedadu waxa weeye inaan u diyaarino dalku inuu horumar wanaagsan oo shaqo abuuris keeni karaya ee loo diyaariyo oo soo jiidan karaya maalgashiga taasina waa siyaasadda madaxweynaha runtii aan uga mahad celinayo joogistiisuna runtii madaxweynuhu macno weyn bay ugu fadhidaa maxaan ku rahdaa muddada kala wareega inuu isagu sii joogo xilka hayo runtii waxaan leeyahay waa taariikh weyn oo waxa weeye oday weyn oo hogaamiye oo rugcadaaya marka ilaahay idamkii waxaan uga baryayaa isagana inuu maaragtay xilliga kala wareega ee lala kala wareegi doono kuwa madaxweynaha heli doona insha Allah taala waliba aan rajeynayo aan leeyahay xisbigu baa ku soo noqonaya biidnillah in uu isagu noqdo odayga dhex taagan ee taariikh weyn way u tahay dalkana waxay u tahay badbaado iyo nabad iyo guul bay u tahay biidnillah taala waxa kaloo doonaya halkan inaan maanta idinkula wadaago in waxaynu ku jirnaa mawsimkii xajka sanadkan dafcaddii ugu horreysay ee xujaaja ee u anbabaxaysa beydka ilaahay subxaanahu wa tacaala si ay u soo gutaan waajibaadka xajka berrita ayay ka anbabixi doonaan halkan madaarka Hargeysa ku dhowaad 130 u dhaxayso xaaji waxay bilow u tahay xujaajta sanadkan soo gudanaysa waajibaadka xajka runtii ka wasaarad ahaan adeeg hufan baan u diyaarinay oo u fududeynaya u sahlaya inay si fudud uga anbabaxaan madaarada u soo gutaan waajibaadkooda ugana soo noqdaan oo si fudud aanu adeegaas u siino waxaan leeyahay xujaajtuna ha ixtiraamaan nidaamka iyo habka loogu talagalay ee shaqadaas loo sugay waxaan uga mahad celinayaa shirkadaha adeegga fulinaya jubba iyo daalo oo runtii xil badan iska saara una fududeeya xujaajta tacshiiraadka xajka iyo habka ay u gudanayaan xaggaas soo fududeeya waxaan leeyahay Allah idinka aqbalo xujaajtana oo ha idinka dhigo xajul mabruur
وزعي المشكور بإذن الله تعالى أننا أدينا نوجهنا وأنا ذكرت تاجرنا هنا واجبات كسوق دتان وما سنتي